kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu waaweyn xiliitaminteena waxaa qayb ka noqon doona Ruushka oo la wareegay warshada tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir ayaa waxa uu 3 jeer uu ka badbaaday qorshe dil ah kaasi oo loo maleegay waxa la arkay ururada kacayso taangiyada uu adeegsanayay Ruushka oo gubanayo isla markaasina lala beegtay lidka taangiyada halkaasina lagu baabi'iyay waxa kale oo aan barnaamijkan ku falanqeyn doonaa qabsashadii Khartoum oo maalmadii shalay uu Ruushka uu la wareegay iyo waxa ay uga dhigan tahay waliba qodobo kale ayaan halkan idinku faahin doonaa hadii ay beedmo Ruushka ayaa waxa uu la wareegay warshada tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub sida uu ku dhawaaqay ama ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiinta Ukraine kadib iska horimaad socday maalmo oo ka dhacay meel u dhow magaalada ku taala koonfurta bariga ee Ukraine haddaba qabsashadani ayaa waxa ay walaac weyn ay ku abuurtay Yurub taasi oo keentay hadii halkaasi uu hal bambaano uu ku dhufto Ruushka in midowga Yurub dhammaan ay u dhamaan doonto balse Ruushka arintaas inaysan ka suurtoobin ayaa laga yaabaa inkastoo dadka qaar ay lahaayeen way dhici kartaa Ruushka wax kasta ayaa ka suurtooba waxa kale oo halkan aan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu 3 jeer uu ka badbaaday toogasho taasi oo ahaa dil loogu talagalay in si gaadmo ah lagula beegto ilaa toddobaadka hadda naga tagay 3 jeer ayaa waxa uu ka badbaaday sida warbaahinta caalamka ay sheegayaan isku day dil taasi oo loo soo maleegay madaxweynaha ayaa waxa uu ku jira furinta hore ee dagaalka isaga oo qaba dharka diriiska ciidanka iyo waliba jaakada iyo koofiyada xabadda cirista isaga oo qabo ayuu ka soo muuqday furimaha hore ee dagaalka taasi oo keeni karta in xilli walba dagaalka uu dib ka soo gaaro muqaala yar oo iska soo duuba ayaa inta badan waxa uu ku sheegaa in uu marna dalka ka carari doono isla markaasina uu yahay nin dalkiisa u dhimanayo isla markaasina garab taagan shacabkiisa sida uu sheegay marna uusan shacabka Ukraine uu mataqaanay ballantii uu qaaday ee difaaca dalka inuusan uga bixi doonin isla markaasina dalkiisa uu difaaci doono cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay soo gaareen saldhigga ciidamada Arlamo ee dalka Poland una dhow xadka Ukraine NATO ayaa ciidamo ku soo daabulayso dalka Poland meesha ayada u ahaa waliba saldhiggooda ugu weyn halkaasi oo ay doonayaan inay ka difaacaan qeybaha kale ee Ruushka ee Yurub waa hadii Ruushka uu ku soo gardarro ama uu soo aado dhanka qeybaha kale ee Yurub waa hadii isku dayga hadda Ruushka uu doonayo in uu duulaankiisa uu ku ballaariyo qeybaha kale ee Yurub diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa maalmahan waxa lagu arkay qeybo kamid ah dalka Sweden halkaasi oo dadka ku nool ay cabsi weyn ay soo food saartay ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay warshada tamarta nuclearka ee dalka bariga Ukraine waa sida haday aan warka idinku sheegnay warkan waxa weeye ka hor intii uu san qabsanin ayaa mataan qeybo kamid ah ayuu duqeeyay kadibna halkaasi israasaaseen ka hor iska horimaad ka dhacay ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa waxa ay warshadaasi gacanta u gashay ugu dambeyn dalka Ruushka muqaala ay soo dubeen diyaaradaha aan duuliyaha aan lahayn ayaa waxa ay muujinayaan guryo la burburiyay iyo waliba gaadiid dagaal oo Ruushka laga gubay gaadiidkan ayaa waxa la arkay iyaga oo gubanayo khasaare aad u xooggan oo ka dhashay khasaarahani isdaba joogga ah ee ku habsaday ciidamada Ruushka ayaa muujinayo guulaha ay inta badan ay dagaalka ay ka gaareen ciidamada Ukraine duqeymaha iyo waliba burburka ayaa ka dhacay magaalada Borodyanka ee dalka Ukraine oo 60 kilomitir waqooyi galbeed ka beegan magaalada Kiev inta badan Ruushka ayaa intii uu dagaalka uu soo galay ay waxa uu ku waayay halyeeye aad u badan iyo waliba gaadiid aad u badan kuwaasi oo laga burburiyay isla markaasina dhibaato aad u xooggan uu kala kulmay dabdamiska ayaa waxa ay la tacaalayaan sidii ay u damin lahaayeen
dab ka dhashay duqeymo ciidamada Ruushka ay ka geysteen xarunta saadka ee ciidamada taasi oo ku taala Kiev, Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa Khamiistii rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta magaalada Kherson ee istiraatiijiga taasi oo muhiim u ah dalka Ukraine iyada oo si wada duqeymaha ay ku garaacayaan magaalooyinka waaweyn dalkaasi waa Ruushka waxa duqeymaha sii wado isla markaasina magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine ayuu garaac ku wada iyo duqeymo aad u xoogan oo baaxadooda aan la qiyaasi karin. duulaanka Ruushka ayaa sababay in 1 milyan oo qof ay iskaga cararaan dalka Ukraine intii uu socday duulaanka Ruushka. saraakiisha dowladda hoose iyo militariga Ruushka ayaa xaqiijiyay qabsashada Kherson oo ah magaaladii ugu horeysay ee ku dhacda gacanta Ruushka tan iyo markii uu dagaalka u soo qaaday waa magaalooyinka waaweyn marka laga hadlayo dagaalka iyo waliba istiraatiijiyadii u degsanaa markii hore. isku dayii Moscow ee ahaa inay si degdeg ah ay ula wareegto caasimadda Ukraine ayaa sida muuqata hakad galay balse militariga guulo la taaban karo ay ka gaareen koonfurta taasi oo qayb ka ah dadaalada lagu go'doominayo xiriirka dalkaasi ee badda madow iyo waliba Azov. inkasta oo Ruushku duulaan uu wado magaalooyinka Kharkiv iyo Javnihir iyo waliba Nebol, wasaaradda difaaca ee Britain ayaa Khamiistii sheegtay in dhammaantood ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Ukraine. waxaan nahay dad toddobaad gudihii ku burburiyay qorshihii uu maaganaa cadowga waa Ruushka ayuu ururada madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay wareysi uu bixiyay horaantii Khamiistii oo yiri halkan nabad kuma joogi doonaan cunto ka heli maayaan mana ku ladayaan 1 daqiiqo balse halkan ma aha goob ay ku nasan doonaan ee waa goob aan ku burburin doono xilli kasta ayuu hadalkiisii raaciyay. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale hareereeyay dekedda magaalada Mariupol ee bariga Kherson. isku dayigii duqa magaalada ayaa sheegay in looga dan lahaa in la go'doomiyo Ukraine. dagaalka ka socdo Ukraine ayaa hadda waxa uu yeeshay waji kale iyada oo laga cabsi qabo dagaalka in uu sii baaho isla markaasina ay wadamada Yurub ay qayb ay ka noqdaan ama dagaalka ay soo galaan. Ruushka ayaa inta badan waxaa la sheegayaa in dagaalkan uusan u adeegsanin hubkiisii casriga ah iyo waliba quwadiisii xoog lahayd iyada oo waliba ay ciidamo badan halkaas ka dhinteen. haddana waxaa la leeyahay haddii uu adeegsan lahaa quwadiisii saxda ahayd in Ukraine ay u dhamaan lahayd hal bambaan oo kaliya oo ku dhufto inay Ukraine dhanba ay ku filan tahay balse dagaalka ilaahay hadda waa socda guulaha waa la kala sheeganayaa balse meesha ugu dambeeyo waynu arki doonaa. muuqaalkan sii share garaya asxaabtiina la wadaaga waad mahadsantihiin.